wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo taliyaasha ciidamada xoogga dalka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo booliiska Soomaaliyeed oo xalay si wada jir ah warbaahinta shirjiraad ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa shacabka Soomaaliyeed u soo bandhigay in si wanaagsan u socdo howlgalka xasilinta caasimadda iyo qorshaha Muqdisho loogu arurinayo hubka sharci darrada ee lagu dhaxsito taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Abdullaahi Maxamed Cali Sambululsha ayaa sheegay in qorshaha xasilinta Muqdisho uu hadda bilow yahay isla markaana uu si wanaagsan u socdo. Magaaladan anaga kama rabno tuuto qori daba jeexa Cabdibile Ordaaya ciidan socda meeshaan xero dagaal ma ahan meeshaan waa caasimad waxa laga rabaa inay noqoto inay yeelato wajh caasimad meel nabada oo dadku oo si nabadaho ii sheegan kalsooni ku jirto oo ku maro ciidamada marka hadii Ilaahay yiraahdo marka howluhun hadda soo socdana dabcan waxa aan bilaawno waa bilaaw si xoog badan ayuu bilaami doonaa marka waxaan ka codsanaynaa guud ahaan si xoog badan micnaheedu waxay tahay meel iyo qof loo turaayo in amaankaas uu sugaana ma jirto taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhinaciisa amray in magaalada Muqdisho aan lagu dhex arki karin ciidamo sita dareyska ciidanka iyo gaadiidka ciidanka militariga Soomaaliya waa in lagu qaato magaalada wax qori ah oo hub ah oo aan shaqo lagu haynin waa la mamnuucay sidoo kale gaadiidka xoogga dalka Soomaaliyeed wixii magaalada socdo waxaa looga baahan yahay inuu haysto ruqsadda dhaqdhaqaaqa gaadiidka baabuurkaas inuu shaqo u socdo cidda la socoto oo mas-uulka ka ah warqada u soo qaadanaya haddii laga waayo warqadaas dhaqdhaqaaqa socdaalka ama socodka ah gaarigaas qofka saaran waa dambiile gaarigana waa laga dhigaya mudane Abdullaahi Maxamed Cali Sambululsha taliyaha ciidanka NISA ayaa cadeeyay in qorshaha xasilinta uusan ahayn mid loogu dan leeyahay koox ama qabiil gaar ah ha yeeshee uu yahay mid Muqdisho looga sifaynayo al-shabaab iyo cid kasta oo hub ku dhex sidata haddii Ilaahay yiraahdo anaga muddo kooban waxaan rabnaa magaalada zero gun laga dhigo qorilaan laga dhigo shakhsiyan aniga amaan waxaan qaanaa inuu ka bilaawdo qoriga la dhigo inuu ka bilaawdo dawladda awood leh inuu ka bilaawdo cadaalad jirta inuu ka bilaawdo inaan ilmaha aan daba soo soconno oo aan ciyaal shabaab oo masaakiin aan ciirsano lama rabe dadka lama taabtayaasha ah oo dalkan ishaan u yeelay meel kasta joogaan ama gudaha joogaan ama dibadda joogaan in la farsaaro aniga shakhsiyan nin u turaaya shaqada lay diray inaan qof aan u horsaag ma jirto dad badan soo qabyaaladeenay hawsha dad badan wajhi kala yeelanay anaga shabaab iyo shabaab eke dawlad diide waa la dirayna hadii Ilaahay yiraahdo General Cabdixakiin Daahir Siciid Saacid taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa tilmaamay in mas'uuliyiinta dawladda loo sameyn doono ciidamo gaar ah lana furi doono xarun laga diiwaan geliyo ciidamadaasi sidoo kale waxaan mas'uuliyiinta ugu celinaynaa 48 saac registration uu sameeyo xafiis oo talisku magacaabi doono ilaaladooda khaaska ah aan kordhin doonana SPU aan yiraahdo ciidan special police oo la asaasi doono qaybtii ugu horeysay inaan ay diiwaan gelin inta la sameynayana aan ayaga u sameeyno calaamado iyo dhar loogu talagalay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa tilmaamay in qorshaha xasilinta Muqdisho uu yahay go'aan ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya logana gol leeyahay in Muqdisho ay noqoto magaalo nabdoon sidoo kale waxaan rabnaa hadduu Alla yiraahdo subxaanahu wa ta'aala next 6 months ama next 1 year hadduu Ilaahay yiraahdo in null vision oo ah in magaalada Muqdisho uu qofna ku dhiman qarax ama bistoolad ama qori lagu dilo sida loogu badbaadi karaa sida kale loogu badbaadi karo hubkana meel iska dhigo aan iska xareen marka dadku waxaan leeyahay yaa la baqin waa aragtay magaalada Muqdisho in hadda sidoo hore ay ka xasiloon tahay waa alla mahadiis ciidanka qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan u bahadcelinayaa dadaalkay muujiyeen magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxa ka dhaqan galay qorshaha xasilinta Muqdisho oo ay golaha wasiiradu ansixiyeen taa oo haddii aad marayso wadooyinka uu ku muuqanayo muuqaal wanaagsan oo ka turjumaya magaalo nabdoon isla markaana aysan indhaha u qabanaynin gawaaridii teknikada ahayd iyo ciidamadii hubaysnaa ee dhex mari jiray wadooyinka Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho